xarumo badan oo ku yaala magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug oo horey loo dhagax dhigay ayaa hadda maraya meelo gabangaba ah iyadoona ay jiraan qaybo la dhameystiray dhismayaasha danta guud ee ka socda caasimadda ayaa loo wadaa si xawliya halkaani waa dhabarka dambe ee xarunta Inji waxaana qorshu yahay in laga dhiso in ka badan 30 filo oo qaab casri ah loo dhisayo waxaa ku jira ilaa maalintii oo dhan shaqaalaha arrimahaasi loo xilsaaray guddiga horumarinta caasimadda iyo xiriirka qurbo joogta ayaa hawlahan si gaar ah gacanta ugu haya waxaana sidoo kale qayb weyn ka qaadanaya bulshada caasimadda iyo qaybo kale oo kamid ah bulshooyinka deegaanada Galmudug dhismayaashan ayaa qayb ka ah xarumaha lagu dhisayo ololaha isku tashi ee ka socda magaalada Dhuusamareeb waxaana jira xarumo badan oo la dhameystiray isla markaasina u diyaar ah hadda in xariga laga jaro meelaha hadda sida gaarka gacanta lagu hayo ayaa waxaa kamid ah xarunta wasaaradda biyaha iyo tamarta Galmudug taliska qaybta 12aad guriyihii saraakiisha dhismayaal goobo cusub laga bilaabay bangiga dhexe oo dib habayn lagu sameeyay iyo xarumo kale maamulka Galmudug iyo qaybaha bulshada ayaa isku dhaarsaday in la hirgeliyo ololaha isku tashi ee la doonayo in lagu dhiso xarumaha danta guud ee ku yaala magaalada Dhuusamareeb iyo guud ahaan deegaanada Galmudug waxaana hadda caasimadda Dhuusamareeb si weyn looga dareemayaa dhaqdhaqaaqyo arrimahaasi la xiriira dhalinyarada caasimadda iyo ganacsatada magaalada Dhuusamareeb ayaa dhankooda bilaabay kulamo ay ku doonayaan inay ku baritaaraan dadaalada lagu dhisayo goobaha danta guud ee ku yaala magaalada Dhuusamareeb waxaana dhawaan la filayaa in kula weyne arrintaasi lagu xoojinayo lagu qabto magaalada Dhuusamareeb maamulka Galmudug dadaalada uu wado ma ahan dhismayaal oo kaliya balse waxa jira inuu xoog saaray dhanka waxbarashada waxa jira iskuulo dhowr ah oo ku yaala deegaano ka tirsan Galmudug oo ay si bilaash ah uga bartaan arday Soomaaliyeed waxa kamid ah iskuuladaasi iskuulka Almaamuun ee magaalada Dhuusamareeb oo ay wax ka bartaan in ku dhow 500 oo arday kuwaasi oo waxbarasho lacag la'aan ah ka hela halkaasi qaar badan oo kamid ah ardaydaani ayaa ka soo barakacay deegaano ka tirsan gobolka Mudug oo ay ka dhaceen abaaro iyo colaado saameeyay dhulkii ay ku noolaayeen waxayna heleen fursado dhanka waxbarashada ah oo aan ka jirin inta badan dhulka Soomaalida xukuumadda Galmudug ayaa arrintaasi kaalin weyn ka geysatay qaybo kamid ah ardaydaasi ayaa iga waramay sida ay u arkaan inay helaan waxbarasho lacag la'aan ah waxbarashada xaaladdu waa fiican tahay alxamdulillah ka waran waxbarashada lacag la'aan qaabsan la'aan markata ma lacag la'aan ku dhigtaa imisa maada barataad toban maadad bal ka waran waxbarashadaas lacag la'aanta ayaa gacan ka siiyay waxbarashada lacag la'aanta waxa gacan naga siiyay maamulka dawladda Galmudug dawladdu marka wax lacag ka qaadato iskuulkan waxa ku dhigataan si free ah free aan ku dhiganaa iskuulkan waxba lacag naga qaado marka arrintaas soo aragtay adigu intan waa ku farxsanaa aniga ahaantayda arday kale ma jirtaa oo adiga halka ka barato dadka soo qaxay waa jirta waa xoogay badan badiyay sama kuwaas marka halkaana joogtaa waxbarasho free ah heshaa imida dhasara ku sugnayd arrintaas dareenkaaga waxay ku beeri kartaa dareenkaaga waxay ku beeri kartaa dawladnimada jirto iyo wanaaga ay noo qabato dawladda Galmudug Adar Cabdinaasir inta ka barataa iskuulka Almaamuun ay ka waran waxbarashada ay sayid ay taad ما قصر أبرني سكان ما شو. هل سنة. عبرتها ما قبل دبرتها. جد مادة. حاجة مدة. حاجة مدة سومالي. بالشيء حسابته. بالنسبة كوابون. أغلام باليوديا. حاضر هذه سكول شغال سكول كان والله أربعة أنا كان حاضر. إيه خصوصا مع العالم خلاص العالم برتها. العالم كتبتها سكول. في برتها. مقالة مدينة مسمالها كتير مقالة مدينة. السوق عملتها هذا مقالة جوش. مقالة كتير. فريان برتها العالم يوم قال. تمر هنا في كل خبر شو. في عام أركان أنا كوني وحدته كان حق كلام. maamulka iskuulka Almaamuun ayaa dhankiisa ka waramaya sida uu socdo iskuulka iyo waxbarashada lacag la'aanta ee ay bixiyaan Cabdisalaan Sheekh Maxamed Cardoofe oo ah maamulaha iskuulka Almaamuun ayaa arrintaasi iga warbixiyay dugsigan waxa gacanta ku haysta dawladda Galmudug oo ayadu aad iyo aad u taageerta waxbarashada waxaana sidoo kale ay la shaqeysaa dawladda dhexe oo dawladda federaalka wasaaradda waxbarashada Soomaaliya ayagana waxay xoog saaraan waxbarashada iyo tayadeeda iskuulku waa iskuul aad u facweyn waa iskuulkii la dhisay ka hor laangan inta dhisan ka hor ayaa la dhisay
sidaad ka dareemi karto iskuulku wuxuu saaran yahay laamiga oo laamigii iyo derbiga iskuulka waxba uma dhexeeyaan sidoo kale iskuulku waxa uu soo saaraa arday fara badan markii ugu horreysay anagu aan bilaabaynay iskuulka waxaan ku bilaabnay 70 arday aan ku bilaabnay maantana waxaan marayaa 300 iyo 60 ilaa 350 inta u dhaxaysa ayuu ku jiraa tirsigaas iyo kabacaas waxa uu ku tusayaa يعني تيار waxbarashada dadka halkan wax ka barta ardayda oo ilaa dhowr khibradda ku dhow sheegtay mudadkii deegankay u badan soo xashira dad digartanka iyo ardayda dhigata dugsiga 97 arday oo kamid ah waa qaxooti waa dad barakacayaal ah ka soo barakacay xarab dheer ma leeyahay oo mudug kamid ah ceelbuur degmo ma leeyahay oo kamid ah mudug kamid ah iyo deegaano kale ee galguduud ka tirsan sida xaraalo kale beele dhulkaas ka yimid waxa kale jira arday kale oo ayaguna xilliyo abaara ay soo maray deegaankan abaarihii xoolihii kaga dhamaadeen dadkoodii oo ka soo barakacay abaarihii yimid magaalada oo magaalada ayaguna qaxooti ku magaalada daafiya dadka deganaa baadiyaha ah waa magaalada soo galeen ayaguna kana faa'iideystay waxbarashadan firiga ah Tahir Maxamuud Cabdi Daahir Galmudug TV